على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وحلا دافا يا مجرى قف كستا دمانا، كل شيء هالك إلا وجهه، شيء كستا وهلاك سما إلا وجه إله ما هانه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، شيء كستا وبابا أيان وحاهر يوجه إله وكرامة إيه شرفت له سبحانه وتعالى. بعدما قف كستا دمانايو قف البوددال diyaar garow diinka ilaah ku dadaal, geerida ha kuu timaada adigoo taaca ilaah ku jira, yay kuu imaanin adigoo macaasi alle ku jira. islaan ayaa sujuudsan dhimatay, waa la toosin waayey, sujuuddeedii ayay ku sugnayd, waa la dhaqay ayadoo sujuudsan, waa la karfanay ayadoo sujuudsan, janaasaa lagu dugtay ayadoo sujuudsan, qabrigaa la geliyey ayadoo sujuudsan, waa la duugay ayadoo sujuudsan. sujuud ayaa lagu soo bixin doonaa yowma alqiyaama in shaa allahu tacaala. waayo nebigu wuxuu yidhi yabcahu allah kullu axadin calaa maa maata calayh, qof walbaa wixii uu ku kor dhintaa lagu soo bixiyaa qiyaamaha. kii asagoo gurbaan tumayo ku dhintaa saasaa lagu soo bixina, kii asagoo ku dhintaa xumaan iyo fiski asagoo ku jira saasaa lagu soo bixina. qof walba wuxuu ku dhinto ayaa lagu soo bixiyaa. xadiisku wuxuu yidhi qof walbaa wuxuu ku barbaara ayuu ku duqoobaa, qof walbaa wuxuu ku duqoobuu ku dhintaa, qof walbaa wuxuu ku dhintaa lagu soo bixiyaa qiyaamaha yoonkeeda. sidaa darteed qofka muslimka ahow ku dadaal khaatimadaada inuu ilaahay wanaajiyo, wanaagga iyo diinka ku soco. ilaahay ayaa qiimo fara badan ku siinaayo. war adduunka maanta ma harin ilaa subaaba ka subaabata alinaa, reereeb oo weelka reereebkiisa oo kale oo qofka cunaaya uu rabo inuu isku keensado ee hal mar uu afka gashto. cali bn abi taalib wuxuu yidhi adduuni aakhiraba ilmo ayay leeyihiin, ee fakunuu abnaa'a alaakhira walaa takunuu abnaa'a addunyaa. war ilmihii aakhira noqda oo ha noqonina ilmihii adduunka. dhammaanteen maanta adduunkii ayaan raacnay, geeridii waa hilmaannay, ilaahay diinkiisii waa hilmaannay subxaanahu wa tacaala. ajasheenana meel loo soo joogaa ma jiro. maanta qof baa dhintay, beri qof kale hadduu dhinto maalinta kale adaa dhimanaayo. yaqiin buu ilaahay ku magacaabay subxaanahu wa tacaala inay imaanaysaa yaqiin ah, qof kastaa inay soo maraysaa yaqiin ah. allaan ka baryaynaa inuu sakaraadka noo khafiifiyo, ilaahay ayaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala inuuna garansiiyo, na xasuusiya inaan adduunkan ka tegayno. wallaahi maanta kulligeen adduunkii ayaan raacnay, adduunkii waa nagu cayaaray. ilaahay nebigiisa sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi qof allaala qofkii hamigiisa ugu weyn adduunka uu noqdo, ilaahay fakhri ayuu labada indhood inta u dhaxaysa looga dhigaa, qabri ee qalbigiisa lagu dhigaa. ma hela adduunka ilaa wixii ilaah uu ugu talagala maahane subxaanahu wa tacaala. qofkii hamigiisa ugu weyn aakhiro uu noqdo, ilaahay wanaag ayuu siinaa. adduunkan asagoo raadinayo u imaanaa buu dhahay nebiga salawaatullaahi wasalaamun calayh. laakiin annaga maanta adduunkii waanu orodnay. qof kastoo hadlaayo waxaad arkaysaa adduunaan burinaayey, adduuna saan igu noqda inuu markaa dhahayo, wax laga haayo iyo wax laga helayna uusan markaa jirin. low aan aakhira hamigeena weyn ka dhigan lahayn, adduunka asagoona soo raadinaayo ayuu noo imaan lahaa. caaisha radiallahu tacaala canha ayaa xoolo fara badan maalin loo keenay. qoraxdu ma dhicin baa la yidhi, kulli way wada qaybisay. gabadheedii mawlada ahayd wayna soonaayeen labadooda, ayaa tiri yaa ummaah hal dirham nooga reeb lacagta aan hilib ku soo gadano, waa soomanaysaan ugu afurno. gabadhaydii maxaad mar hor ii xasuusin weysay bay tiri. maba xasuusaninba xaaladda noocaas ah. ilaahay waxaa xaq uu ka dhigay qof kastoo adduunkan raaca inuu duleeyo, waa hadduu diinka ka leexdo. qof kasta oo aakhiro raaca oo adduunkiisii intii loogu talagalay ka ogaadana inuu ilaahay wanaag siiyo subxaanahu wa tacaala. cajrad baa lagu magacaabaa adduunka. ilaah wuxuu yidhi man kaana yuriidu alcaajilah cajalnaa lahu fiiha maa nashaa'u liman nuriid. qof allaala qofkii caajilada iyo adduunka doona oo adduun keligiis hamigiisa uu noqdo, man kaana yuriidu alcaajila cajalnaa lahu fiiha maa nashaa, waxaan doonno i liman nuriid. adduunaan rabaa xataa inta rabti ma lagu siinaayo, laakiin intii ilaahay rabaa lagu siinaa subxaanahu wa tacaala. uma jacalnaa lahu jahannama yaslaahaa, jahannamo ayaa loo fidinaa gogol buu dhahay ilaa subxaanahu wa tacaala. waman araada alaakhira wasacaa lahaa sacyahaa wa huwa mu'minun faulaa'ika kaana sacyuhum mashkuur. qof kasta
oo doona aakhiro u camal qabta u shaqaysto u dadaala asagoo mu'min ah kuwaasa camalkooda mashkuur ah ninkan adduunka keligiis doonay iyo kan aakhiro u dadaalayba kullan numidu haa'ulaa'i wa haa'ulaa'i min cataa'i rabbik wama kaana cataa'u rabbika maxduur nin walba wuxuu ugu talagalo ilaah adduunka ka siinaa mana laga qadinayo buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala bacdamaa xaaladeennu ay sidaa tahay adduunka annagaana loo qalqay sida ilaah uu tilmaamay subxaanahu wa tacaala adduunka iyo waxa ku jiraba idinkaan idin abuuray buu dhahay ilaah idinkaa iskaloo laydinkugu talagalay idinkana ana idin qalqaday buu dhahay ilaah cibaadadeedaan idin abuuray ee shaygii idinka laydin abuuray ha uga mashquulina waxaan aniga idin dirsaday buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala xadiisul qudsi haddaba qofka mu'minka ah mar walba waa inuu dadaalaa xaqa ilaahna uu ku socdaa subxaanahu wa tacaala waayo qiyaamaha dhibaatada badan ayaana sugayso